بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة ديال ميركستو الدنيا كجوكتان وحان مركل إذن لنا هاي هبين وناكسن مالين وناكسن قلب وناكسن دور وناكسن وقت والبؤ وناكسن ومركل برنامج كي نوغب براتين برنامج كاسو سلكا كوهاي أما الدبادة اللقلي عن راهدو الصوماليهان قد أهان فنك الصوماليات وحان وحبنا ربنا إنان كجحجحنو قد أهان أرمها فنك كارهان فنانينتا انت ميكروفون ليدا هيا شي waxa barnaamijka caawa marti inoogu aan raahday qaybka ugu horeen geeska midig waxa fadhiya saaxiibkay wiilkayga walaalkay super Abdi Fatah aftah markor sudo wadaba walaalkay Abdulqaadir Cali aan raaciye gabadha aan ka dhicin lamaanihiisa walaashay magac kale aan u aqaan laakiin kaan idinku taqaanaan ka bilaabay Shaadiya Sharaf waa gabadha la hulin waayay waayahan dambe adduunyadana gilgish soo dhawaad mar kale aan raaciyo saaxiibkay walaalkay Mo Diamond waan dhawahay Abdulqaadir Abdulfatah ku wada cali okay Abdulqaadir Cali cilmi waa ma santahay barnaamijka mar walba waxa sokor u ah ama cusbo u aan raade marwal bal dhex taagan rabana inuu fakarkiisa iyo aqligiisa iyo juhdigiisa ku bixiyo waa abwaanka Soomaaliyeed abqariga ah waa abwaan Awil Cagud mar labaad iyo marar baran iyo malaayiin jeer soo dhawaad salaam dhamaantiin Abdulqaadir waa maadsantahay waa dhawahay milyan maanka kaalintaada maadsantahay waa dhawahay laakiin daawadayaasha aad u salaamahay okay Nuur Kalsooni wiilka sanadka fashionista wiilka masraxiyada Nuur hay ana faara lugtan jeclaa aad weyn waa dhawahay barnaamijkan soo socdo ku faraxsan aad iyo aad waxaan rabaa inaan halkan kaga mahadnaqo kaameramanada sida quruxda badan hadii jeer u taagan iyo editinadeena ugu horeyn Maxamed Cabdi Caraaye iyo waliba Saalim Kiskeysi hagarlaan habeenimo maalin nagala shaqeey inta ina daawanaysa abwaaniinta la xamiistayaasha musiishanada fanaaniinta iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan mar kale idin leenahay salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ugu horeyn waxaan jecelahay inaan su'aalaha iyo faaqidaada aan dhush ka siino wash ka siino dhakac ka siino waxaan mikrofoonka siinayaa saaxiibkay dhanka bidix ka fadhiya abwaan Awil Cagud waxaan leenahay ku soo dhawaad marka hore mikrofoonka waxaan rabaa inaan faaqidaad ku sameeyno fanaanku sidiisa warta muxuu yahay fanaan sidiisa muxuu yahay aniga iyo daawadayaasha waxaan rabaa hobal loo qaana horta anigu hobal haye fanaan waa hobal haye qof kamid ah bulshada haye hasa ahaatee kaga duwan luuq cod halaasi ah iyo jilleen kiba u ah ilaahay uu siiyey si codkarnimo lehna uu bulshadiisa ugu soo bandhigi karo intuu soo hor istaago fanaanku waa qofka waa mahadsantahay Shaadi Sharaf ma la qabto abwaanka waxa uu ku fasiray ama uu ku faaqaday macnaha fanaan marubba fanaanka inuu hobal yahay marubba fanaanka inuu yahay mid kale cod halaasi leh laxanka loo dhiibaan si hagar la'aan u xifdiya bulshadana fariinta loogu talagalay abwaanka u dhiibay inuu yahay mid si sax ah ku gaarsiin karo la qabtaa la qabaan ku raacsan Nuur farta taagay waxa u meenaa inuu ka gudsan Nuur hay fikirkaas والله أنا فكركاس وكدوبنا هاي أو رأسنا هاي لكن وحيوان كسوس زيادة. هاي دنكات كجبدلنتا أني داوديش. وحن كجبدلنا إن فنان كوا هرتا مارتي وهو سيدو شيء. هاي. إن فن سيدس وما حربيت وقروح. قروح هاي. إن فنان كوا قروح وأغلب ومارتي تالنت. قف كأنه مارتي وياه قف تالنت أو قبنا. وحول بهم نقطة. marka talent iyo hawshaas uu ku fiican yahay ilaa mustaqbalka marka la codsi maadaama aan Soomaalinahay erga talent la yiraahdo nooc Soomaali garay talent waa hibo waa qofka saasan ka rabo luqadeena aan ku maadaama iska garabna ka faa'iideysan leeyahay waxa uu qabanayo ilaa mustaqbal uu ka gaari karo oo yahay waxa saahiba ah waxa fan ah waxa akhlaaq ah waa maadsantahay muhiim waxa ku tirsanaysaa aniga waxay dhaheen la qabaa okay ma tinid waxaan rabaa Abdulfatah Farxado super Abdulfatah inaan su'aashan markaan dhankiisa dhigo maadaama uu yahay nin muddo badan fanka ku soo jiray wali markaan raahdo niil Soomaaliyeed gaar ahaan caasimadan ama caloosha hooyada dalkeena Soomaaliya Muqdisho ma jiraan dhihi kara dambi maangalada ergaas isticmaalo wada number 1 haduusan ahayn wada number 2 Abdulfatah ma din karna fanaaniinta Soomaaliyeed gaar ahaan fankeena waayaan dambe
hana qaaday horta ma yihiin kuwa yaqaana toonkay ku haysaa علشان دونت او كوين سو قفك horta abqaadir aad u maasan tahay horta fanka hadii jiro waxa badan dadku waxay sameeyaan waxay dhahaan fanaaniinta horaa yani dad wanaagsana weyn yihiin horta fanka horaasaana fankan dambe waxa ma aha abqaadir waxaa aaminsanahay qofka wax yar hadduu soo faa'iideeyo ama wax yar uu sameeyo raafraaci hore oo wax yar sameeyo waxaan u aqaana qof wax soo kordhiyo isna uu fiican معناها إنه مركه رسوت صالحته فينك إسيه كوري بيتنا أو أصلنا وحكو دارو بدري السماء وحيره كوكو بيرصدو سقونا كبدلنا إنسان كبدلنا السماء مركه أنت بدل مركه سؤال أنا صور نقولنا وحنا قنيسة مركه فنانين تومية كانين تونكو علشان أدور ربعنا هذا مش شننا إكهاد البيان شو توصل ودي كرتا إسكاليبل ما بدنا مركه كهر صح انت ما تدري تون هبل ايتك انت على السوشيال صح تون هبل موسيشن او ايتك دومجور ايتك غير نور ايتك فاديس ايتك قط ما انت به كرا كل ذي كرا بقولك بوحه اني سنه سدح فوق سدح ما افر سدح ما افرني كم بركرا هجاج هذا او ما سنت كروان انا عد معين عد معين تنبوي قانين تنبوي قانين مسعيد وليين مسعيد ولي لكن تون هبل ايتك دك هوري انت كاشنينا انت بداونaysa gaar ahaan fanaaniintan waxaan jecelahay intaas inaad ka faa'iideysataan hay'ashe waxaad dardaaray inuu ah wixii talo iyo tusaale ama dhiirigelin ama dhaliil ah waxaad mar walba noogu reebi kartaan qaybta aangaada ama qaybaha commentiga halkaad naga daawanaysaana waa Kaskay Production waxaan jecelahay Aftaax mar kale intaanan ka tagin waxaan rabaa inaan sii raacsado ridankii ay ugu jecel yihiin fanaaniinta Soomaalida inta dhalinyarada waliba adiya hadda waayadan jiro ridanka loogu jecel yahay waa zaambada ama waxa loo zugloofka okay erayga ay isticmaalaan oo dhagayga mar walba ku bataa wuxuu yahay Aftaax waxay yiraahdaan laxmiista oo kale markay rabaan inay hees u dhibtaan ama ay doonayaan in hees loo sameeyo waxay si degdeg ku yiraahdaan hees kulul ii samee marka anigii daawadayaasha erayga hees kulul ii samee kuleelkaas marka muxuu yahay kuleelkaas macnaha waxa laga wadaa badii waxay u ordaan dhalinyarteena zaambada iiga samee zaambada macnaha juga fiir reegayga jugu noqdaa kuleel uu noqdaa dii laga dhigo countries-ka dii jugu laga dhigo uu noqdaa rooga laakiin anaga waxa u fahansanahay in zaambada bas oo ay tahay oo uma laxmiista waxa leenahay laxmiista hees juga rabaa macnaha oo zugloofa oo heesa Afrikaanta hadda socota laakiin zugta iga dhigam leeyahay aan ka dhaxgala Abdi Fataax fanaan ayaa wuxuu ka dalbaday abwaanka inuu soo sameeyo erayo tiraanyadooda leh qisadeedu waxay xambaarsan tahay tiraanyo xanuun leh markii loo sameeyana wuxuu dalbaday in looga dhigo dugti ama kuleyl okay haye hada tiraanyada iyo kuleylna isma qabtaan oo isma geli karaan bal fanaaniintu dhinac soo raaco bal arrinka naga ayadan naga hagaag aad ama sita abaan waa jecelahay waqtiga wada qaybsano hay'ashe nuura waxaan dhihi rabaa nuura heesaha aan kugu arag inta badan waxay u baahan barnaamijka zaamba qaybihiisa kale ka duwan maxaa u jeclaatay inaad qaadato ha barnaamijka dhabka hadal ah tiisa haye difaac nuur horta eray markaan abwaan ka qaato ama abwaan ay siiro markaan laxmiistaa u dhiibo horta ridan iiga sameey ma dhaho صح ridan inaan ka dalbado wallahi hal ama laba way dhici kartaa laakiin inta badan ridankaas iiga sameey ma dhihin marka laxmiistaha markuu erayga qabsado erayga unbaa tusaaya laxanka marka sida markuu soo laxmeeyo waa ku qancaa oo waan qaadaa hagaag mo dheemun adaan kugu socdo niyo adan heesaan aan kugu baran sidoo kale nuur isla qodobkan laga doodayo aan wax ku darsado muusigan jugta maaragtay jugta zaambada haye tusaale ahaan hadda markuu Aftaax oo kale ama nuur ama ay fanaan aroos markuu tago markuu hees oo kala kirista ama hees laanta markuu qaado waxa dadka saan u fiiran ilaa ma yaqaanaan muusig marka fanaanka markuu dhahay muusigaas jugta ama wuxuu ku leeyahay نور كلسون هسه قاضي عمل لحن كاس موسيقى سيسار هم عفتاح وهم شاديو أما فنان كون نقطة بحب لين فنان كاس يستيس فنان كان ياس كان إله وكل كعين سيب كيس نقطة حاجات مو دايما سود اللي ما بتاع معلوم لما يشتروا هاي مركا waxaa lagu leeyahay aroos markaad tagto kala heeskaas joogta dadkana waxay xiiseynayaan muusigaas joogta ha laakiin laxan walba nasiibkiisa iyo dareenkiisa waxaa igu maqala sida hadda ka hor mar aan la wadaaga sheeko mid ka mid ah laxmiistayaasha ugu heesaha macaan taariikhda Soomaalida intii jirtay qaar Allah siiyo waa Cabdikariim Jiir ustaadkeena
waa ninka ugu laxamada badan dadkeena Soomaaliyeed uguna laxamada wanaagsan haddaanan been la sheegin ilaa barnaamijkaaba dhabka hadala mar hal shay kasta wuxuu ii sheegay erayada markuu abulxamiistaha ay hor yaalaan hadba erayga dareenka uu yahay laxankana inuu noqdo taasi isu diidana hagaag waxaan jecelahay aadanku ahmed celina cabdikariim jiir ustaad moodhama adaan kugu soo laabtay تقولكيه وتعشى ما كانت ربتنا بس. أنا شخصي أنا محمد أنا مدير تريدي مرت أنا عم تريدي هذا اللي صار عما ما أنت الحميسة مركا أوتجا لحن كو أسيل كصاب كقالنا لحن كأسيل كصاب نوسلستا أوتجا ريدم كإيه كرا كوكان أحسن. كوكان أحسن ده سمع. حاجة هذا ما هذه شرف مركز السود ولا شيء وحن ربع إنهم كورديجو إسقاط سجى سها أما هاس وسوق هذا نور كرسوني جبر كله ترى هذا ولا وكذا سو جوابيا وما حي فائدة أما هو مركز كذا بيا أما البحر ماذا لا بيكر ولا جنح لك هنكسر ها سبب الكرا فتمر كر يجور مرة إسقاط سجى سها إسقاط سجى سها وحيتها مركز فنان هاس بسيط وكله أما هاس أصير يتلصي وقال حوالي أبوان إنه كان جواي هاس قصير وقال إنه أري كبدل سيدو بدو جواي وفنان كلي هذا قفص وكان جواي هو أديك إيقاد ما كان صار هذا شيء أنا على استقبسي أبوانين تأصبها أصبها حاجات وأصل الله دون أبوان نشان وفريقين سنة ودريم كرا كورنا مركا أنك كلا كأجنون هاس عادي سوق عادي مكو نور في هذا ولا الهاس كسر وأنا كسر جوابه معناها كذا بيسو هاس كسر قرحة أنا كذا بقرحة 100 هاس كسر قدمية كأنها كذا بقدم 100 ما ريدوا الجعل هذا جواب معناها محل سبيكرا وحال سبيكرا تاسوي العدالة محل رادينا معها هاس جوابك بحنا لليل وهاس قرحي هي مرت هاس عن قرحين جواب وأدقت هاس كنا بحي أبو بدنا من لما بقى لما كنا بونته المركة إن جواب لقى بحي هاس أنا ما هبونا ما هبونا أبونا أقسنيا ما أو بوب واي توكل أي قاضي وكل جواب يازي ها وأرن سحن إن هيس لوجد جوابه وأرن وفنك هيبدي وقوح ضبلا لكن سيدي لوجد جواب يا واي ايش مش طلعت سيدي لوجد جواب شادي ميوزك جاي اوتوماتيك افتقر ادخل هنا كلاسيك ادخل هذا لكن هو ميوزك بنانا ما هي ميوزك بلا عدك هاي ادو اوتوماتيك لحنكي aad martaan maraya ayada bisalku wasaasa jawaab uga dhigay iskaaga ismac jawaab ma xalay mar hadlayna waan ku sheegay waa sax heesku waa inuu ahaada samayskiisa kale iyo laxankiisa kale waa inuu wataa laakiin laga dheexan karo heeska shaadiya qaatay uu dabagal u yahay mar walba oo ku soo celina sidii sheeko baralay iyo barahiya waa ma salahan erayga jawaab uu fanaaniinta hor laga markii waa sax أو فنانين تورنيس كم سو جواب وكجواب جري هذا أبوان قبل هذا مسته إيه كم جواب هذا جرتنا يا بالله فنانين أنا بالله فنانين تنبأ بالله بالله أنا فنانين توركم أركين وأرك جري لكن هاس قاعد قدر داير وكلا إني موضوع سوق عادي هذا ما باشا الله لكن هاس وفنان قاضي اسمه هاس كلو أريا كلو معنا كلا ستة وكبسوا الجواب وما دعين ما أنا أركن أنا يعني لكن هذا كاسي أنا waxaa heeskii qatrad daahir aan soo qaadanaya laba heesooda qatrad daahir laba waji ku soo kala qaadanaya qatrad daahir oo qaaday heeskii ahaa ama buraaqadii barinamiga fuulaan balse qaad oran haddii aanan balaayay buulkeyga kaa gelin bisan kana xijaab oran bismillaahi raxmaan raxiim waad u wada taqaaniin oo malayha dhanka kale ka fiiri marka cabdulqaadir jibbe heeskii uu qaaday la yidhahdo bukaase ya waa xarafka ba'dan bisanka waagii la maray buraaqay naqaad la yiri جايل كيما لقى بحث لكن والله بلحن قصة جايلات قبل ناري كهذا شيء تري جايل رباب براغي لما كفوا العرارو أصلا هو يبغى لقى بحث ومية وجوابتي هيس كاس ودبجوتي وهيس كاس ودبجوجا هذا هاته سيدا عدو تغانين كجوابيش هذا تعال لحنكي موسيقى إلا مرة ما مرد لحنكي هراء يا موسيقى هراء هيس كلا عصب لحكي سوتا أشادي حركة هرمر ولاد أبوان قبل يوم كتير فنانين تينن دأ ذير أيا بلاغي إن هسها ليس جوابه
laakiin may ku dhigin dhanka laxamada iyo muusiga marka in isla heeskii laftirkiisa iyo laxankiisii la isticmaalo ayay bilaabeen maahane in hees looga jawaabo iyaguma aysan bilaabeen shaadiya marka waxay diyaar u tahay abwaana inay wada fahansiiso annaga iyo daawadayaasha marka aan idin fahansiiyo waxaan ka wada su-aala la weydiiyey su-aashaas oo ah yaa maxaa sababay in fanaaniinta ee heesaha isaga jawaabaan waxaas waxay tahay micnaheeda laxan qofkii adiga samaystay erayii samaystay wixii adi erayo unbaa bedeshay wixiina jawaab waa kasoo jawaabtay adi laxan ma soo saarin cusub muusig cusubna uma soo tuman sida heeskoo kale anoo adi ku rabahayga roori ruuxdayda iyo marka umaroori haddana waa isjawaabayan laakiin taasay ku ta anna waxaan ka hadlayay heeska su-aashaan waxaa moodaa inaan ku dheeraanay waxaan rabaa inaan soo gaabiyo hayashee milyan aan dhankaaga markaan usoo weecdo weli ma kugu dhacday hees lagugu qabsaday ma jirtaa way dhacday soo maha okay ma dhacday heesa adig kasoo jawaabtay ama hees adiga a soo qaaday lagu yiri makaaga soo jawaaba ma dhacday iyadan hagaag nuur adna wallaahi hees horta leegu qabsaday ma igu dhicin laakiin waxaa igu dhacday hees aniga aan qaaday inuu qof kale youtube ka dhigto codkayga matala heeskaasi aan dib waxaa jeclahay su-aashaas inaan dhankaas eegto markaan aan kusoo koobo markaana waa su-aal furan waxaana jecelahay inaan wiilasha ka bilaabo gaar ahaan geeska super cabdifitaax cabdifitaax oo gabdhaha iyo wiilasha markaan fanaaniinta ka hadlayno keedaa dadaal badan dhanka fanka ku dadaal badan barnaamijkuna waa dhabka hadal ya gabdhaha iyo wiilasha marka wallahi waxaa aaminsanahay aniga ahaan ragga inay dadaal badan yihiin adiga saas aaminsan tahay dhamayso waxaan dad ku qabin wiil iyo gabadha ka dadaal la dhaho suud ma haye ninka ka orda gabadha dabi howlo guri iyo waxay isaga mashquulsan tahay ninkana macnaha wuu soo kaca jaam maxaan galaa waay marka waxaan aaminsanahay ragga inay ku dadaal badan yihiin aad iyo shaad yahay gabdhaha dadaal badan soona baxaan iyo soo baxo ciyoona la bartaa waa soo gaaray okay haye gabdhaha waxay ciyo usoo baxaan hadmatalan fiili wiilasha markay hees soo qaadan cid boonbooninays ma jirto haye laakiin gabadha markay soo heesto kale indhaha dhanay soo jiidanaysa gabdhahana soo baxaan ciyo soo baxo marka taas waxay la macno tahay gabdhaha dadaal badan aad iyo maya anigu dooda ka qabaa haye maxamed qaado haye waxay dhahday walaashii shaadiye gabdhaha markay heesaan ciyawa magac yeeshaan ciyawa maxaad leeyahay haye la bartaa dadaalkooda baasha laga saaray wiilasha fanaaniinta wiilasha way dadaalaan qofkan inuu magac yeesho horta nasiib waaye waa sax boqolaas waxaa arkaysaa de fanaaniin intaasoo heesto matay oo aanan weli socon laakiin lucky waaye hagaag marka uu sug weli kama haye gabdhaha waxay soo caan baxaan waa barnaamij caadi barnaamij waa dhabka hadal gabdhaha waxay kusoo baxaan waxaa waaye qoorteeda ha feedato ama si kale na u baashaasho ama si kale maxaa leeyahay si baashaal xumaan kama wada maya ma ii kara waa inaan qanciyo xumaan yaa loo fahmin baashaalka kama wada laakiin markaa qoortaada qaawisid aad waxaa raadinaysaa markaa qoortaada dhegeyso milyuun markaa qoortaada qaawisid ama tintaadu qaawantaa kale qasab waa lagu bubuuna laakiin surwaalkan wato iyo محمد وحاول مليون سنة مركان هاي مليون داودياش محلها داودياش وشيء معناها قبلها إني دذال بدني مدة كلا قبل إسقاوسي مصاب بحضر قرب الميت كصاب بحضر ميت يفهم كذا كصاب بحضر نجي تقفل بفنكي كصاب محمد قبل هذا قبل هذا مسيته بقولها قبل هذا مليون كسعة اوكي مدة كلا قور الفيتو يشاق
boqolaal qof oo kusoo bixi Haye. waaye gabdha asturna oo cod leh oo soo baxaa jiro Haye. gabdhaha cod lehna asturna soo baxaa Haye. jiro Haye. Ma fahan? Haye. ugu jawaab wax yariis leh baa ugu jawaab محمد برنامج ورا ولا قال محمد سميع سوق. ولا قال له برنامج كان هذه كابناي برنامج كان هذه كابناي حبس منه وحرب ان تكون قبل 6 دود gabdhihiisha markay soo saaran hal video waxaa laga yaabaa inay ka caajisaan oo sanad kadib ay soo Ay soo saaraan saaraan. laakiin gabdhuhu mar walba waxay ku dadaalaan Ah. see macnaha ii sheeg kusoo baxaysaa see hees qaadaysaa see macnaha ku dadaalaysa gabdhuhu mar walba way dadaalaan حمد الجوكنا سوشيال ميديا ورسعنا معنا فير حمد الجوكنا انت boqolaal gabdhood oo waxaa arkaysaa qaawan oo magac yeesho waa aragta gabdho badan xamar joog oo dhuun macaan meesha ii joog erga macaan meesha ii joog qofku isugu dadaalo waaye waxaan aaminsanahay ii joogto inaan u qaabna fanaaniinteena walaalaheen aada idin jecelahay waxaan jecelahay anshaxa iyo habsan u socodka barnaamijkood inaan xaq dhoorno صح qof walba mikrofoonka waa la siinayaa ee adoon lagu wicin mikrofoonka dafin صح siyaasiyiinta ku naqaanaa iyo dad kale waa attack toosa laakiin fanaaniintu waxay walaal leeyihiin akhlaaq صح markayaanan la soo boodin abwaankii wax annagoo dhan abwaan noo ahaa gabar iyo wiilba ayaa dhexdeena fadhiya abwaana daawadayaasha maxaad ka dhigi lahayd gabdhaha iyo wiilasha keebaa dadaal badan markii dhanka fanka loo fiiriyo waxaad moodaa fanaaniinta hadda ila fadhiisaa inay laba baaqto u kala baxeen oo qolo walba tooda ay difaacday ha wiilashu ha iga raalli noqdaan haye sidaa dadaal badan waxaa dadaal badan gabdhaha aada aan sii raacsiiyo sababta aan sii raacsiiyo haye gabdhuhu gabadha hubbigeedu uu fanka yahay iyo mar u tallaabo qaadaahay sida ay u bilowday fankeeda ayay uga dhabaysaa wayna ku bixisaa juhdi wayna daba joogtaa raggu inta badan inta aan ka naqaano weliba kuwii ugu cadcadaayay sida wanaagsan loo buunbuuniyey soo baxay afar hiiso hadduu qaado shukaansiga ugu filanba magaalada hebel laga yiriba intaas oo hablihiisa isaga shukaansadagabdhuhu way dadaalaan wiilasha laftigeeda wiilal badan oo dadaala way ku jiraan ragoo dhan ma wada eedayn xagaag waxaan jecelahay markana inaan dhanka shaadiyo u leexdo shaadiyo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo walaal fanaanku ma yaqaanaa heeskiisa laxankiisa labiskiisa iyo inta la halmaasho macnaa inta badan ma yaqaanin heeska dhuuntiisa ku fiican laxanku ku wanaagsan yahay labiskiisa haddana markaan sii dhex galno gabdhaha iyo wiilasha keebaa qaladaadka dhankaas ku dhaca marka gabdhaha ku badan dhankaas inaynan aqoontoonkeeda labiskeeda iyo laxankeeda hagaag maadaama oo macnaha horta waxa markuu soo wada galaayo bilowga wax iska dhib badan aad laakiin waa lagu kala fiican yahay aad iyo aad ani waxaan isleeyahay ragga amay nooga fiican yihiin dhankaas dhanka xulashada heesaha iyo laxamada iyo iyo toon wax ragga ku fiican صح hagaag haye hadaayo waxaa leed shaadiyo gabdhahay difaacaysaa haddana wiilashay difaacaysaa maxamed maxaa leedaha haddana wiilasha naftirkooda xitaa maarag He. boqolkiiba waxaa laga yaabaa 80 ama boqolkiiba 40 in la helo in la helo inay yaqaaniin heeskooda toonkooda laxankooda labiskooda inay yaqaaniin ayagana ma dhamo boqolkiiba boqol ma ku dhihi karo Hagaag. sababtoo ah gabdhaha waxaa waaye markay waxaan kugu cusub yihiin annaga maadaama iska daciif aad iyo aad aad iyo aad wuxuu markii justina laga dhaadhiciyeen Ha. cusub yihiin waa iska qaadanaynaa laakiin ninka ragga ah waxaa laga yaabaa in laakiin si aan cudur kuu ogaano ma la dhihi karaa aada haysidii horta ma ishubisay inaad fanaan tahay macnaha marxaladii uu soo maray qofka inuu fanaan yahay tijaabo iyo wuxuu soo maray isagoo heesi kara ayaa haddana lasii kala fanaansan yahay marka aada heesidii horta ma ishubisay inaad fanaan tahay mise waa jeclahay inaan heesaa abwaani horta fiiri mar kale maxamed abwaani raalli ahaada mar walbana waa kusoo celi anshax barnaamijka hortaan dhowrna qofkan waxaa fiican su-aasha meesha taala inuu fahmo waxaa ah fanaanka ma yaqaanaa heeskiisa iyo laxankiisa macnaha fanaanka ma la hubiyo inuu fanaan yahay ma aha isagoo fanaan fanaankaas fanaanka ah ma yaqaanaa waa heeskiisa iyo laxankiisa iyo labiskiisa waa soo gudubnay nuur marka ma isdhi karaa labiska idinka ragga haddaad tihiin waad ku liidataan wallaahi kuma liidano dhanka laxamadana kuma liidano dhanka heesalidda iyo humaakhelidda ma waa ku liidataan ma isdhi karaa dhanka gabdhaha idinka shidan waa la dhihi karaa hagaag aadaa umahadsan tahay muhiim markaan adigu joogtaa